فهد كلمة waxa la yidhahaa smart waa qof garaad weyn leh midna waxa la yidhahaa cunning waxa weeye nin qof xeelad badan guday waxaan idhahan gaalada king maker inuu noqdo ahaado way nin noocaas waa fahad muddaan aqaanay markii ugu horreysaynu shakhsiyan is hor fadhiisanay waxay ahayd 2007 anigoo jooga magaalada Asmara isaguna journalist u shaqeeya wariye u shaqeeya Aljazeera dhalinyar buu ahaa magaasi samanka dadka Soomaalida wixii 40 u dhow ayaa dhalinyar la dhahaa 20kii kama hadlano fahad intan ka aqaano waa nin go'aan leh fahad intan ka aqaano waa nin dantiisa gaarta ah sida looga shaqeeyo yaqaana laba kalmadood baan ku sheegay oo Ingiriis oo macnaynaya waxaan u dan leeyahay inaan ka idhaaho fahad kelmad waxa la yidhahaa smart waa qof garaad weyn leh midna waxa la yidhahaa cunning waxa weeye nin qof xeelad badan dacwada xeelad badan baa la dhahaa fahad markaa waa nin cunning waaye xeelad badan waaye markaa wuxuu doonaya wuu yaqaanaa meesha uu socdo wuu yaqaanaa dadka waxa uu fulin kara wuu yaqaanaa taasi waa taasi ta labaad isaga afkiisa ayaan ka hayaa sida inuu yaqaano sida lacagta loo soo qaado dawladaha looga soo qaado iyo sida loo gato dadka baarlamaanka la soo gashanaya afkiisa annaka oo safrna wa birabbil kacba ayuu ii sheegay taasina wuu leeyahay muxuu lacagta iyo gadashada baarlamaanka uga dan leeyahay wuxuu uga dan leeyahay waxa weeyaan inuu ku danaysto isagu ku fushado wuxuu doonayo saaxiibadii wax siiyo kuwa reeraha uu doonayo wax siiyo markaa isagu uu noqdo king maker waxaan lagu yiraahdo boqorkii sameynaya xeelada oo dhan inuu noqdo una laakiinse xagga hore soo fadhiisan taasi waa midda kale waxa weeyaan fahad ma garan karo mana fahmi karo intan anigu aqoontiisa aqaano inuu arko waxa ummadda oo dhan u dana ma arki karo wuxuuna arki karaa dawladnimadu inay qabyaalad ku dhisan tahay unbuu arki karaa aniga afkiisa ayuu iga yidhi laba reerood unbaa madaxdu ka soo bixi kartaa hawiye iyo daarood bay ka soo bixi kartaa isaguna wuxuu raadiyaa hawiyaha ugu fariidsan ma raadinayo daaroodka ugu fariidsanna ma raadinaya ku wadan karo oo isagu ku shaqaysan karo ayuu raadiyaa fahad markaa waxa weeyaan meesha inuu isagu markaa yahay dadkii ninkii xagga dambe ka maamulaya waa tiihan ku keenay inuu yahay isagu mulkiilaha dawladda ta kale ku xigsiin karnaa waxa weeye haddii maalan had soo hadal qaadid taariikhda Soomaalida oday Soomaaliyeed way fara badan yihiin dadka suugaantii Cabdillaahi Suldaan Timcadde loo oran jiray ayaa madaxnimadu waxay tahay iyo waxaan ahayn ka hadlay Cabdillaahi Suldaan markuu ka hadlay wuxuu ku leeyahay waan daari doonaaye kuwa doonaya inay kursiga weligoodba ku fadhiyaan iyo kuwa doonaya inay dadka ugu adeegaan markuu waqtigoodu dhamaadana doonaya inuu ka tago bal arrinta iyada aan dhageysano fahad waan soo noqon doonaa منطق مركي فولتي مدشلو جوغي متانا درارتي دشيلو مشخر دايي كلام يرنتن لبدا على المريديس ويدا مرجع كلام يرنتن لبدا على المريديس ويدا مرجع ربي ما هاد نقيسي مركانني قمي زايي مسكي برلمان هذا مركيان ميلي سوقو قيني مدحوي ليالي يوم مركي من ازدر له دورتي مسكعني وانا يدي يوددكي ميلو ودا جيديني من قيم الملك وقوي ملك لذا nimankii melmeley waa kuwii maalayka lidooda hadday maalintiina horkacaan midho ma weyneene manaxaanadii baan arliga meeriisna u toline marnaba yaydinaan dhicin kuwii malee ku soo goosay miyigana nimankii mindida meel walba u dhiibay kuwii muusanow iyo tola'ay nagula meeraynisay nimankii mashaqaday dhigeen reer badhanu moostay suntaynagu mudeen wiilashii la ismartii
marka waxaan uga dan leeyahay waxa weeyaan madaxnimada uu timcadde ka hadlayo farmaajana ma garan karo fahadna ma garan karo marka fahad geesinimo wuu leeyahay go'aan wuu leeyahay qarannimona ma laha dadnimo Soomaali loogu danaynayana ma laha fahad ma fahmi karo waxay wadaniyadu tahay wadaniyadu waxa weeyaan in dadkaaga adigu iska horreysay sidoo tidaahdid waxaan dadkayga uma qalmaan inkastoo aniga ii wanaagsan tahay ummadayda waxaan ma qaban karto fahad ma garan karo isagu wuxuu haystaa waxa isaga u wanaagsan in qaranka u wanaagsan yihiin marka ma garan karo maanta iyo berri iyo mid ka dambaysa ma garan karo qarannimo fahad tanasulna waxa weeyaan Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa waraabuhu hadduu qaniino wax lagama fujin kare waa in loo gooyaa fahad in loo gooyo mooyaane inuu dabciyo si ay dadka kalena wax ugu yeeshaan kasirtoonka waa qaamid waa inuu qarsoonaado la fahmi waayaan laakiin anigu laba shay baan ninkan saddex shay baan Fahad Yaasiin ma aqaano laakiin laba goor ma noo sheeg saarnay labada goorna xashkan ku oranay xashkan markaa isagoo dariiq socon ku oranay wuu islaamay wuxuu yiri inaan ku wareystaan doonaya jaziira waan ku arkay mar labaad saama ku oranay saam bigir bas waas dhaafnay dib dambe meel aan ku arkay labada goorna waxay ahayd Sacuudiga xashka wali waa maamino oo dadka ijcaal isagoo dhagax soo tuuraya annaa dhagax ka soo noqday ma ku labada garba mar kale nolosheedu ay kulantay ma jirto laakiin aan buudin marka aan ka eego aan kasab waxa laga qoray aan eego saddex shay bay ka soo baxday qorta waa daki waa nin aqli badan weeyaan intelligent weeyaan waa nin maankiisu dadka kale uu wax ka dheeriyahay dadku hadday maaragtay shan dareen leeyihiin dareenka lixaad iyo ka toddobaad ma u qabaan marka arrintaasi waa muhiim meeshaas siduu u gaadhay way ku tusaysaa labo sida uu qofku iibinayo u iibin yaqaano way ku tusaysaa saddex sida uu cadowgiisa uga adkaan karana way ku tusaysaa saddexdaasiba inuu yahay qof daki jiddan ah waa saddex waa daki arrinta labaadi waxa weeye waa sameeye sida uu yidhi ninka maxaan ku dhahdaa maaragtay professorkan Samatar ee jaamacadda Mareykanka dhiga wuxuu yidhi isagu siyaasadda ma rabe waa sameeyaha siyaasiga siyaasiyiintu sameeya isagu arrintaas maxay ku tusaysaa in uu gartay dowrka marka la eego waxaan la sameeyey iminka siyaasadda Soomaaliya ayna bislayn ay 4.5 ay ku shaqaysan tahay 4.5 ay ku shaqaynayso oo reero waaweyn meesha ay yeesheen oo reerana waa yartiin laga yidhuunay wax yar ma jireen sidaa la isku waafaqay wuxuu gartay dowrku ciyaari karo dowrkiisi markaa wuxuu noqday an yasnaca siyaasi an yasnaca alxaakim walidaalika waxaa dhahdaa dadii waxay yaqaanaan sida madaxda loo sameeyo dadina waxay yaqaanaan sida madax loo noqdo dadina waxay yaqaanaan sida madaxda loo dumiyo dadina waxay yaqaanaan sida madaxda loo fashiliyo waxaasi wax la qoraya waxaa ka mid ah ninka la oran jiray Abu Muslim al-Kharasaani wuxuu sameeyey dowladdii Cabbaasiyada isagaa sameeyey dowladdii Cabbaasiyada isagaa riday dowladdii Amawiyada mu'assisu dowladda Cabbaasiya waa Abu Muslim laakiin dowladdii baa dishay dowladdii uu sameeyey uu u dagaalamay uu Kharaasaan u tagay uu meelaha ka soo ururiyay dad oo uu dowladdii Amawiyada xoogga badnayd uu dumiyey uu dowladda dhisay islaamkii xoogga badnayd dowladdii baa dishay marka halka waxa kuugu jira akhi fil islam maxaan ka naqaanaa gaar ahaan adigu maxaad ka taqaanaa Fahad Yaasiin wala siyaasi ahba nin yaraan barta aniga oo 89kii dabayaqadii dhalinyaraha ahaa dadkeenan waxaan iska ahayn activistiyaasha oo diinta barta oo culimada oo xarakaadka islaamiga ku jiro oo nin dhalinyaraha asagana markaasaan bartay sinisdeen waan aqaanay nina shaakir waqti dheer aan aqaanaa dheer waan inaan aqaano dhalinyaro ah waxaan ka shaqeeyaa xarakaadka islaamiga in badan ku soo jiray bacdi media u wareegay dadka siyaasiyiinta oo dhan la shaqeeysta siyaasadda 24 hours waqtigiisa u gooyay waga xarakaadka muxuu ahaa dadkan diinta iyo ku taxalluqa mise askar u ahaa dagaalama ciidan kamid ah maya ururkaas oo ka tirsanaa dabcan itixaadkan oo dagaalami jireen baday marka dagaalada qaar inuu galay waa laga yaabaa qaas kuwa looq iyo gada ka dhacay laakiin sidiisaba nin siyaasadda u tafaruqa xiriir dawlad qadar lale u shaqeeya telefishinkeeda markii dambena markas daraasaad aljazeera la yiraahdo u wareegay aad siyaasadda committed uga ah waqti badan geliya
isku daya inuu siyaasadda saaxiibaha ku samaysto madaxweyneyaal ku dhisto dhaqaale dibadaha uga raadiyo waqtigiisa juhdigiisa intiisa badan siyaasadda iyo siyaasiyiinta iyo saxaafadda iyo ay ku jirto isku daya waxaanay dhahaan gaalada king maker inuu ahaado nin noocaas waaye maadaama al-itixaad ahaa dagaal inuu ka qayb galay oo qori qaaday bal xaqiijin karaa wala aniga ma ogi laakiin sidii dad ii sheegeen asxaabtiisa oo dagaaladaas ka qayb galaa saas ah laakiin aniga dee ninkii goob taagnay ma ihi laakiin nin nashaad badan oo wax isku xir badan oo abaabul badan oo dhaqaale dibadaha u raadsada oo siyaasadda inuu asaga wax samaysto mar waxaa laga dhigay wasiir wuu diiday dowladdii xasan sheekh nin ogol asaga inuu rabo inuu asaga wuxuu sameeyo qayb ka yahay ay joogaan jecel waaye dadaalkaas runtii waa ku ammaanan yahay oo waana ku fiican yahay waqti badan iyo time badan inuu geliyo oo nin commitmentiga aniga waa jeclahay dadka commitmentiga leh oo inay rabaan waxa ay sameynayaan ay ku gaaraan aragtida leh mowqifka leh oo aan siyaasadda ahayn maanta haddaan helana waa qaadana beri waa hela masaariix yararkaa siyaasadda aan ugu jirin dhinacaas waa iga cajab geliyaa laakiin aragti weys marka wixii helo marka aragti siyaasadeedoo weyn oo dalkan lagu maaray karuusan lahayn marka wuxuu jecel yahay inuu xoog ku marsiiyo aragtidiisa cariiriga ah inuu meel ku cariiriyo ana I think waxay isaga isu qabteen xas sheekh xagee ka keenay kula tamarka fikradda noocaas ah inuu saa u dhaqmo fikirkaas oo waxaan u malaynaa salafiga sida u samaysan itixaadka ah in dadka la maquuniyo markaas wuxuu ku dhisan yahay alwalaa walbaraa wax la yiraahdo ama inay raacdo oo walaa ay siiso ama inaad bari iga noqoto oo cadowgiga noqoto ama inaad walaa ii hayso hatta haddaan cadowgiga la jirin cadowgiga ka mid tahay I think teamka xashiq waa jirinka xashiq wax ka dhisto ahaa waxay xashiq isku diideen waxaan u malaynaa inay fikirkaas cariiriga ah oo meel la marsiinaa ay tahay marka farmaajo helada fikirkii cariiriga isla meel mali karaan oo asagana militarism iyo awood in wax lagu qabsado iyo koofi casnimo backgroundkeeda marka laba fikir oo meeshaas aroostaa ay muuqatay Cabdiraxmaan waxa sheegtay inuu yahay nin siyaasiya oo fikir siyaasiya gada oo dadka siyaasiyiinta soo jiita oo wax badan ka shaqeeya siyaasadda maxaa ku qasbay marka inuu taliye ciidan noqdo oo awoodda militariga iyo maxalliga sirdoonka u aado hadduu yahay nin siyaasi ah wuxuu dooray kula taal laga yaabaa inuu isiri awooddaas meeshaas awood badan oo dadka ma ogtahay fiirka carabaha ku ta'athura mukhaabaraadka marka carabaha joogto waa xoog badan yahay intelligencega dowladda waa mishiinka ugu xoog badan markii laga tago qofka xogka haysta marka qaarkoodna waa equalba marka dee maadaama uu thaqaafa carabeed iyo culture caraba uu leeyahay uu ka yimid backgroundkaas inuu mukhaabaraadka yahay jihaas ay dhahaan ama mukhaabaraad qaarkood meel awood taalla inay tahay I think halkaas uu ku saamoobay saas dadka kaligiisna ma dadka carabta wax ku barto dhanaa noocaas waa jecel yihiin dawla mukhaabaraatiya wax la yiraahdo laakiin dadkan westernka jooga ama westernka yimid dad dimuqraasiyada iyo freedomka aad oo macna ugu sameeyso mar haddii qofku mukhaabaraad ka shaqeynayo waa qof maanta oo maskaxdiisa ay ku jirto waxa la qaarijiyo waxa la xanibo waxa la dilo waxa la dhibaateeyo mukhaabaraad siyaasad ma aha marka maxaa baduu yahay siyaasi mukhaabaraadku waa fiican yahay hadda interest state-ka ugu shaqeynayso oo maslaxadda qaranka hadda ugu shaqeynayso oo ma ogtahay inaad qarankan wax halis ku xogteeda aad keento ka badbaadiso ka hortagto mukhaabaraadka Soomaaliya u fahamsan yihiin waa qalad waxay u fahamsan yihiin tiftifnimo iyo qof la qaarijiyo iyo qof luuq lala galay iyo qof la dilay iyo qof laga takhaluso waxaana keenayo hanaanka oo hadda waa aragtay hadda MI5 iyo MI6 dadka noqda Oxbridge kaliya laga qaataa oo Oxford iyo Cambridge dadka ka soo baxay kaliya loo qaataa intelligent intellectual extremely aqoon fiican leh inay yihiin qasab ah because intelligence yaa lagu leeyahay oo meel intelligence qof caadifi ma noqon karo marka Soomaali qof dadkaasna marka national security dadka lagu aamino waa amniga qaranka ama amniga qowmiga dadka lagu aamino waa amniga qowmiga marka wax badan ku jiro siyaasadda ku jiro dhaqaaliga ku jiro waxa ku jiro cuntadiga ku jirto halista imaa karto oo bini aadanka ku imaa karto ama haday tahay duufaano ama dhibaatooyin assessmentiga qofka marka inuu amniga qaranka ilaaliyo oo halista qaranka ilaaliyo oo nafur u sameeyo ama sacrifice u sameeyo qaranka badbaadidiisa waa loo baahan yahay laakiin de maadaama dawlad booliisiyadan waxa la yiraahdo dawladan oo ciidan ku dhisan oo xoog iyo maqooninta ku dhisan oo mukhaabaraadkooda wuxuu u shaqeeyaa dadka ay ka shaqeysa kaliya
oo maanta oo dhan qofka muwaadinka daba taagan tahay isaga daba socoto marka laakiin dowladahan waaweyn ee hormaray amniga uu yahay wax oo noocan u sharaxayna threat-ka uga imaanaya dowladda dibadda iyo haddii jiraan internal threat oo dibadda ka yimid oo dibadda ka socday waxyaalahaas ka fiiriya laakiin dee annaga mukhaabaraadka aan koobiyeynayno waa kii dee 22 san rejiimkii ragga u waaweyn oo magacyada leh noocaas bay ku shaqeey jireen iyo wax la mid ah marka tiin baa la koobiyeynaya haddii sida aad sheegtay uu ninkan Fahad Yaasiin taliyaha nabad sugidda uu yahay nin siyaasi ah oo rabo dalkan iyo dadkan inuu hogaamiyo oo xukun rabo muxuu isku qariyaa waa noocaas oo ka imaanaysa mukhaabaraadnimada iyo noocan xarakiga